xiisad ayaa ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taasi oo salka ku haysa khilaafka madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. xiisadda ayaa timid kadib markii labadii cisho ee ugu dambeeyay uu soo shaacabaxay khilaaf xooggan oo u dhexeeya labada mas'uul. madaxweyne Farmaajo ayaa 26 bishan ku eedeeyay ra'iisul wasaare Roble in uu ku fashilmay hogaaminta doorashada kadib markii uu ka leexday dhabbihii jihaynta doorashada. wuxuuna ku baaqay shir uu ugu yeedhay dib u jihaynta doorashada dalka. baaqa madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ka horreeyay shir uu ra'iisul wasaare Roble ku baaqay kaasi oo 27 bishan loogu ballansanaa in ay Muqdisho ku kulmaan madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo loogu yeedho madasha wada tashiga qaran. kaas oo qorsho u ahaa in lagaga hadlo arrimaha doorashada iyo sixitaanka dhaliilaha doorashada socota. intaasi kadib maamulada dalka iyo beesha caalamka ayaa la kala saftay labada shir ee ay ku kala baaqeen Farmaajo iyo Roble. xalay goor dambe madaxweyne Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu shaqada kaga joojinayo wasiirka koobaad ee xukuumadda Master Roble isagoo oo ku eedeeyay musuqmaasuq dhul danguud oo ciidanka xoog lahaa taasi oo meesha ka saartay in khilaafku uu yahay mid cusub. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa amar ku bixiyay in xilka laga qaado taliyaha ciidanka badda Soomaaliya Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir kaas oo horay ugu eedeeyay ra'iisul wasaare Roble in uu dhisanayo dhul ciidanka baddu leeyahay. shaqa ka joojintan ayuu madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay mid muhiim u ah dhamaystirka baadhitaanka tuhunka ku tagrifalka dhulka danta guud ah oo taliyaha ciidamada baddu u soo jeediyay ra'iisul wasaare Roble. arrimahaasi ayaa waxa ay sababeen in saaka magaalada Muqdisho xiisad laga dareemo gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya iyadoo ciidan ka amar qaata dhanka madaxweyne Farmaajo la dulgeeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaana sidoo kale hadallo kala duwan soo saaray mucaaridka iyo ra'iisul wasaare Roble oo madaxweyne Farmaajo go'aanka uu shaqada kaga joojiyo ku tilmaamay mid sharci darra isagoo oo raaciyay in Farmaajo qaadi doono mas'uuliyadda qalalaase kasta oo ka dhashay xiisadda taagan. dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Master Cabdiraxmaan Al Cadaala oo lagu tiriyo dhinaca ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in uu fashilmay isku day afgambi. si kastaba ha ahaatee khilaafka madaxweyne Farmaajo oo uu xilku ka dhammaaday iyo ra'iisul wasaare Roble oo loo magacaabay ra'iisul wasaaraha xilgaadhsiinta ayaa noqonaya kii labaad ee sidan oo kale u soo shaabaxa muddo sanad ah oo uu xafiiska joogay ra'iisul wasaare Roble. hase yeeshee khilaafkan ayaa noqonaya kii ugu xoogganaa ee dhex mara labada mas'uul. intii khilaafkan taagnaa ayaa waxaa jiray xiisado aan dad badan u dhug yeelan oo iyaguna barbar socda khilaafkan weyn waxaana kala qaybsan guddiyada doorashada Soomaaliya ee heer federaal. sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa isku beddelay wasiirada gaashaandhigga iyo cadaaladda. waxaa xusid mudan in khilaafka ka hor Farmaajo iyo Roble ay ku tageen safaro kala duwan dalalka Qatar iyo Turkiga oo ka mid ah dalalka jiheeya inta badan siyaasadda iyo loolanka dhaqaale ee Soomaaliya. lama oga halka ay ku dambayn doonto xiisadda culus ee u dhaxaysa madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya oo muddo 2 sano ku dhow wajahaya khilaaf iyo xiisado ka dhashay dib u dhaca doorashada. ugu dambayntii ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo inta badan lagu tiriyo dhanka madaxweyne Farmaajo ayaa labada dhinacba ugu baaqay in ay xiisadda dejiyaan isagoo oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yidhi waxaan ahay tabliiq nabadeed. waxa aan labada oday ugu baaqayaa in ay dalka caymadiyaan Soomaaliya guul ayuu yidhi Mahdi Guuleed.